sidoo kale waxa uu sheegay in goobtaas ay ahayd goob inta badan xoogaga iska caabinta gaar ahaan alqasaam ay aad u yaqaaniin oo difaac muddo dheer ay kaga jireen wuxuu sheegay inay muuqatay in ay ka warhayeen tirada ciidamada goobta ku sugan gurmadka ay heli karaan waqtiga ku filan ee howlgalkaasi ay fulin karaan isla markaasna wuxuu leeyahay howlgalkani wuxuu ahaa mid xilli dheer la qorsheynayay jenaraal alduwari waxaa kaloo falaqayntiisa oo ku xusay marka la fulinayay wuxuu yidhi howlgalka caynkan ah ciidamada waxaa loo qaybayaa 3 qaybood qaybta koowaad waa ciidan difaac ah kuwaasi oo lagu talagalay inay jidgooye u dhigaan ciidamada gurmadka ah iyo inay caawiyaan ciidamada howlgalka fuliyay inay ka soo baxaan goobta qaybta labaad wuxuu sheegay inay yihiin ciidamo loogu talagalay inay caawiyaan ciidanka haddii dagaalku ku dheeraado qaybta saddexaadna wuxuu sheegay inay yihiin ciidanka sida tooska ah howlgalka u fulinaya jenaraal faiz al-duwari waxa uu carabka ku adkeeyey in howlgalka caynkaasi ah